inan baan bay iga xidhan yah saamaxaadda iyo si walba waan ku jecelahay in laga sii daayo loo sii daayo oo laysdo ummadda ilaahay la sii daayo wixii xidhanba yah in dembi dee adagna aan lahayn dembiye adagna aan lahayn dee in layska soo daayo weeye oo la saamaxo waay maxaabiistu dee waxay ku jiraan meel cidhiidhiya oo jeela hadduu qof keliya xanuun qaado kulligood wada dhimanaya markaa wuu ku maadsanya taa inuu sii daayo wixii dee dembi adag aan gelin mooyaane waxa kalea sii daayo haddaanu celdoon ku jirin inaa soo daayo miskiinku dee in badan buu xidhnaaya intaasi waa aragnimo ugu filan isna ha waaye arkoo dalkiisa iyo dadkiisa hoos ha u eego iyaanu hooyadii qalinka wax kaga qorin ha ka daayo oo si wanaagsan oo ragannimo leh wax u qoro suxufi wanaagsan oo dadku jeceliin weeyaan laakiin inta yar ka reebdhe madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu isagana dee sidaa wanaagsan u wado hawsha anigu burcaan jooga markii la yidhi maxaabiistii waa la cafiyey runtii waanaan ku farxay oo dadka waxa weye maadaama dhibaato iminka waddanka joogto waxaanuna soo galeen wixii aan dilahayn iyo wixii aan dadku isaga hor imanayn in la sii daayona waa muhiim waxa weeye khaladka bini'aadanku wuu ka dhacaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan jooga dee khalad waa ka dhacay markaa khaladaadku waa jirayaan waa dhacayaan baraha bulshada waxaa ku wareegaysa ninka la yidhaha coldoon runtii dee cidna ma jeclaysan wixii uu qoray laakiin waa bini'aadan marka waxa weeye dhagaha u furmaan lena ummadda reer somalilan iyo ummadda soomaaliyeed iyo cid kastaaba waxaa leedahay ninkaa hala sii daayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan shalayta wuxuu cafiyey maxaabiis badan waxaa laga dhursugaya shacabkuna dhegtay u taagayaan in waryihii weynaa samafalihii weynaa cabdimaalik sheekh muuse coldoon in ay bulshadu ka dhex baafinayso inuu ku dhex jiro haddaanu ku jirin iyo hadduu ku jiraba xukuumadda haddii aanu ku jirin waxaan u soo jeedinaynaa ninkaas samafalaha dadka badan taageeri jiray mutadawacnimada ugu shaqayn jiray qof dembiguu galaa wasiiradaba qaar baa dee corruption galaa marka waxaan leenahay cabdimaalik muuse coldoon hala cafiyo maxaabiista xidhan anigu taa aaraa badan ka bixin maayo waxaan uga bixinayn qofku markuu xidhan yahay marka la sii dayno dee samadaa laga sii daa marka horena samadaa laga xidha wax xagga sare ka yimi xadhigu markaa dad dulmi ku xidhan iyo dad ku xidhan dulmi iyagu galeen labaduba waa jiraan taa markaa dee dawladdu haddii go'aankeeda qaadatay iyaday ku xidhan tahay waxa cudurka soo gudbinayaana dee neefi halkaa inooga soo gudbin mayso waa diyaaradda wata dee waa kowa diyaaraddii lama xidhin dawladda arrintaa waa ku eedaysan tahay aad iyo aadna ummadda somalilan waa ugaga cabanaysaa diyaaraddii oo ka imanaysa shiine oo meel walba ka imanaysay oo furan oo halkaa imanaysa cudurkii keenaysa oo meel walba la qabanayo qofkii diyaaradda sida cudurkii sido waxa weeye taas waa arrintaa waanu garan weyn macnaheeda mid kale aanu garan weyn imase gacmood soo maraa qaadku wuxuu soo maraa kun gamcood buu soo maraa kun gacmood ma masaafi baa ummadda qaadka soo qaada iyo kuwa gura waynu naqaana kuwa gura ilaa kuwa soo xidha waa dadka ugu nadaafad xun weeye waxaanu leenahay dawladdu haddii ummaddeeda u turayso aanay shilin ku xisaabtamayna ummaddeeda u tursayno waxaanu ka codsanaynaa dawladda inay diyaaradda iyo qaadkaba naga joojiso